madaxweyne ku-xigeenka Puntland General Cabdisamed Cali Shira ayaa maanta xariga ka jira cisbitaalka TBda ee degmada Taleex oo ay si wada jir uga hirgeliyeen gudaha degmada Taleex hay'adda Dayl Africa iyo wasaaradda caafimaadka Puntland waxaana munaasabadii maanta xariga lagaga jiray cisbitaalkani ka soo qayb galay qaar kamid ah madaxda caafimaadka Puntland oo ay kamid yihiin wasiiru dawlaha wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Maxamed Xirsi Ducaale Dr. علي حسن agaasimaha u qaabilsan Soomaaliya hay'adda Dayl Africa Cali Xirsi isku duwaha dawladaha hoose ee gobolka Sool Maxamed Yaasiin Cali Shire Shariifka iyo waliba sidoo kale bahda caafimaadka degmada Taleex munaasabadani oo ahayd mid ballaadhan isla markaasna intii ay socotay lagu soo hadal qaaday lagana hadlay dhibaatada ay leedahay TBdu iyo qaabka ugu haboon ee lagu la tacaali karo laguna daweyn karo qofka qaba cudurkaasi ayaa waxa ugu horeynba ka hadlay gudoomiyaha degmada Taleex Maxamuud Cali Warsame waxaan idinku soo dhaweynaynaa rugta caafimaadka degmada Taleex gaar ahaan qaybta TBda oo laga bilaabay degmada maanta tii madaxweyne ku-xigeenka xariga ka jiray ahayd markaan warbixin yar ku daro deegaankan hadda waxaa ka dhacday roob fara badan baa ka da'ay kulli siyaabaha qaarkood dhibaatooyinku uma ay gaadhin laakiin waxaa jira cillado yaryar oo kulli uu keenay roobku sida wadooyinka go'an dooxooyinkii oo faruurmay oo biyuhu ka leexdeen magaalooyinka qaybo kamid ah sida xalin oo kale beeraha ay waxyeeleeyeen meesha la yiraahdo kalcad oo kale oo guriyaha ka dumiyay roobku xooluhu inkasta ay badnayn xoolo iyana roobku dilay waa ay jiraan guud ahaan sidoo kale waa la iska barwaaqaysan yahay ilaahay mahadiisa ilaahay baa alxamdulillah roobka inoo keenay dawaayin ku soo dhaweynayaa degmadiinii iyo deegaankii iyo waxqabadka aad wadaan oo soo bilowday aad iyo aad baan idinku sharfaynaa ku soo dhawaada dhinaca kale waxayna geestooda goobtaasi hadallo ka soo jeediyay Dr. Cabdilaahi Aadan Food Dr. علي حسن agaasimaha u qaabilsan Soomaaliya hay'adda Dayl Africa Cali Xirsi oo dhamaantoodba ku dheeraaday dhibaatada ay leedahay TBda iyo qaababka ugu haboon ee loola tacaali karo laguna daweyn karo dadka qaba cudurkaasi muddo 2 sano iyo wax la jira ayaa cisbitaalkan TBda outpatient TB programka lagu talagalay uu dhisnaa una sugayay in la furo oo ay ka faa'iideystaan deegaankan Taleex iyo nawaaxigooda waxaan mahadnaq u soo jeedinaynaa intii ku tacabtay oo hay'adda Dayl ugu horeyso iyo wasaaradduba dhakhaatiirtan ku hawlan horena aan meesha ugu kulannay hadda soconaya waa arrin deegaankani uu u baahan yahay laga maarmaan loo ahaa inuu muddo horeba dhaco waxaan caafimaad ahaan kulley ballan qaadaynaa inaanu inta nagaga aadanna dadkan loogu shaqeeyo shaqaalihii loo tababarayna ay hortiina fadhiyaan iyaga oo labisan qof waliba uu shaqadiisa u leeyahay qabsan doono iyagana waxaanu ku baraarujinaynaa inay noqdaan kuwa wixii barteen uga faa'iideeya dadkooda saa ogtiin waxaa jira hadduu qofku cudurka intuu daawadii la siiyo ama daawadii googooyo ama uu fadfakado waxaa jira noocyo kale oo TB oo aan xal loo hayn oo wadanka hadda mushkilo ku haya oo daawadii la qabsanaya noocyadaas intaysan imaan waxa la rabaa daawada in toos loo qaato intii kiniiniga lagu talagalay intii bilood oo lagu talagalay miisaankaaga ku xiran aan la kala googooynayn mas'uuliyad baan dadka kulli dusha ka saaran inay arinta ku baraarugsanaadaan waad ogtihiin dad fara badan waxa laga yaabaa inay safar dheer u galaan inay meelo fog aadaan waad ogtihiin hadda ka hor inta dawladii hore in xamar kaliya loo aadi jiray in qofka lagu soo daaweeyo TBda nasiib waxa marka ah hadii degmadaadii lagu keenay adiguna guriga ku dhagan xarunta aad ku jiran tahay oo aadan meesha imaan taasaan nasiib darro ah Sooma marka waxa la rabaa dadweynuhu inay ku baraarugaan wacyigelin fara badan shaqaaluhu sameeyaan cudurkan waa cudur la daaweyn karo waxa laga yaabaa hadii qofku yiraahdo hargab baan qabaa ama cagaarshow baan ama jones baan qabaa ama waxa soo dhan inuu sheegto oo neef baan qabaa sonkor baan qabaa oo weligiis la soconaysa laakiin TB oo 6 bilood lagu daaweyn karo inuu qofku u qarsado runtii wax laga xishoodo sida dhaqaatiirta iga horeysayba ay uga faaleeyeen cudurkani ama xanuunka TBda waa waxa ugu sahlan ee la daaweyn karo sida aynu ka warhayno xitaa waxaad moodaa in maaragtay ay ka sahlan tahay hergabka iyo malaariyada sida uu inoo sheegay Dr. علي حسن marka dadweynaha reer Taleex waxaan u sheegaynaa in ay maaragtay ka faa'iideystaan fursadaasi oo maaragtay agabkii shaybaarka wax waliba daawadii
everything waxa weeyaan maaragtay lacag la'aan marka waxa kaliya ee la inaga doonayo waxa weeye in maaragtay aad ka faa'iideysataan waxa ugu dambeyntii soo afmeeray munaasabadan isla mar ahaantaana hadallo dhiirigelinaya waliba dardaaran oo goobtaasi ka soo jeediyay wasiiru dawlaha wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Maxamed Xirsi Ducaalay madaxweyne ku-xigeenka Puntland General Cabdisamed Cali Shire oo geesiisa ugu baaqay dadweynaha reer Talax inay ka faa'iideystaan cisbitaalkani cudurrada la iska daaweyn karo waliba kuwa ugu sahlan buu ku jira marka daawadiisa si loo qaato bacteria keenta adkaysi badan oo laga yaabo qofku hadduu halkaa ku tufo inay muddo dheer halkaa oo laato dadkii kala qaasiso neeftaa lagu kala qaadaa sidii dhakhtarku inooga sheekeynayay tasanbabadu waa ta ugu tirada badan ee la kala qaado dadkoo meel ciriiriya isugu yimaada sigaarka iskula cabba aan isaga turin oo qofka bukaana uu yidhaahdo waxaan qabaa hargab baa igu yarraagay qofku waxaa la yidhaha dadku waxa cudurrada marka la baari waxa la yidhaha 2 usbuuc hadduu qofku qufaco waa in laga baaraa TB waa in laga baaraa waxa weeye qofka loogu danaynaya waxa loogu danaynaya qoyskiisa caruurtiisa reerkiisa baa lagu marka ugu horeysa kuwaas uu qaadsiinaya sidii la sheegay dadna mujtamacii kale ayuu gudbinaya nasiib wanaag Talax oo meel qadiimiya taariikhiya degmo ballaaran ah deegaan badan oo ballaaranna xukunta oo hoos yimaadaan salaan kadib runtii waxa sharaf weyn oo ah inaynu maanta halkan ku kulanno si aynu u furno cusbitaalkii TB-ga ee degmada Talax waa laga soo sheekeeyay intii uu soo jiitamayay maantayna inoo suura gashay si xaqiiqa in loo furo cudurka waxyeeladiisa iyo waxa uu ku yimaado iyo sida loo daaweyn karo dhakhaatiir aqoon u leh ayaa ka hadashay ma jeceli inaan dib ugu laabto laakiinse waxaan idin sheegayaa bulshooyinka reer Talax ku boorinayaa ama aan ku guubaabinayaa inay dareemaan wixii meelaha fog loo ay u aadi jireen ama ay u doonan jireen inuu maanta kaabiga u yimi oo degmadoodii iyo magaaladoodii u yimi saas darteed inay sida ugu fiican uga faa'iideystaan waan kula dardaarmayaa si kastaba ahaatee cisbitaalkani ayaa ka caawin doona dadka qaba cudurka TB-da sidii ay ku caafimaadi lahaayeen iyagoona ka heli doona dawo baadhis iyo weliba raashin lacag la'aan ah Cabdiraxmaan Jaamac Xashi Cabdiraxmaan Wadani Somsa TV Talax